السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلهي سبحانه وتعالى وليالا محسكله waxaan wax yar ka taaban doonaa sida muxaadaradu ay tahay salafkii ridwaanullaahi calayhim iyo qiyaamu leylka qiyaamu leylka waa istaagga habeenkii marka af Soomaali laga dhigo habeenkii oo salaad loo istaago waxa kale oo lagu magacaabaa tahajjudkuna waxa weeye qofka hurdada ka soo kaca oo u istaaga salaada sidaas ayaa almutahajjid ay culimada luqadu ku tilmaameen oo waxay yiraahdeen التهجد بالقيام من النوم sidaasay dhahan dadkii taabiciinta ahaa quraanka fasiray mujaahid iyo calqama iyo aswad iyo غيرkoodba التهجد بعد النوم waxa weeye soo kicitaan qofku uu soo kaco hurdo kadib oo uu salaad u istaago sidaas darteed waxa la oran karaa tahajjud laguma tilmaamayo haddaan la seexan ma aha tahajjud
يعني قيام الليل وسوق كراه وحي عشاها كالضنبية، لكن تهجدك إلهي سبحانه وتعالى وفري النبي عليه الصلاة والسلام dadka muslimiintaana alla subxaanahu wa tacaala sunno uu u jideeyey ah dadka saalixiinta addoommadiisa alla subxaanahu wa tacaala u cibaadaysta habeenkii waa tahajud bacda annowm markay seexdaan kadib inay hurdadii naftooda ka soo toosiyaan, hurdadu markay macaanayd naftooda ay ka soo gooyaan, ay ka soo kacaan firaashkooda iyo gogoshooda si ay alle subxaanahu wa tacaala u hor istaagaan ay u baryaan alle subxaanahu wa tacaala. saas ayaa waxaa ku tusinaysa gogosha inaanay dhinaca ku qaban karin aayadda kale oo ku jirta suurata alif lam mim tanziil ama suuratu sajda ee alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى وحتلمامay gogosha inaanay dhinacoodu qaban karin oo ama ha noqoto culimada qaarkood say ku fasireen maqribka kadib inaanay cisho salaad hurdo u degdegahayn ee ay tukanayaan, ama ha noqoto inayan gogosha ku nagaan karin oo markay seexdaan kadib oo dadku guryahooda aadaan ay hurdada ugu jecel yihiin, ay hurdaduna ugu macaan tahay, rag iyo dumarba ayaanay gogosha qaban karin oo iyaga iyo gogoshii waxaa ka dhaxeeya is-afgaranwaa jafwa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tiri tatajaafa junuubuhum. jafwada waxaa leeyahay labada qof markay isqaban waayaan oo inay is-afgaranayn, marka qofkan dhinaciisa mu'minka ah ama gabadhan mu'minadda ah iyo gogoshu isma afgaranayaan, is-afgaranwaa baa ka dhaxeeyaoo kuma macaansanayo, waayo wax ka macaan ayuu dareemayaa. maxay tahay waxa ka macaan? hurdada oo uu rabaa inuu u tooso waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala munaajaadkiisa, alle subxaanahu wa tacaala inuu hor istaago oo yadcuuna rabbahum siduu alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan. cabsi ayay alle subxaanahu wa tacaala ka qabaan, cadaabkiisa iyo caradiisa bay ka baqayaan, dunuubtooday ka baqayaan. saas darteed ayay alle subxaanahu wa tacaala rabaan inay hor istaagaan, waxay rabaan oy weydiisanayaan oo ay tamcayaan naxariistiisa iyo jannadiisa alle subxaanahu wa tacaala. waana kan alle subxaanahu wa tacaala aayado kale ku tilmaamay oo yidhi wadcuuhu khawfan wa tamacan ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin. ilaahay ku barya idinkoo rajaynaya naxariistiisa iyo jannadiisa, idinkoo ka baqaya oo ka cabsi qabo ka welwelsan naartiisa. dadka mu'miniintaana waa dad welwelsan sidooda, qalbigoodu dad welwelsan yahay wey. alla subxaanahu wa tacaala siduu ku tilmaamay waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun ina cadaaba rabbihim gayru ma'muun. alla subxaanahu wa tacaala siduu yidhi walaqad aataynaa muusa wahaaruuna alfurqaana wadiyaa'an wadikran lilmuttaqiin aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi wahum min asaacati mushfiquun. waa dad welwelsan oo cabsanaya wey. siduu alle subxaana wa tacaala kaga warramay aakhira markay tagaan oo janno galaan inay leeyihiin inaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum inaa kunna min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru araxiim. bilowgu waxa weeye marka walaalayaal tahajud ama qiyaamu lleyl waxa weeye salaad loo istaago la taagan yahay, maaledoo la fadhiyo loo taagan yahay oo la tukanayo, oo habeenkii la tukanayo, oo qur'aankiina la akhrinayo, alle subxaanahu wa tacaala loogu cibaadaysanayo kalaamkiisii akhrintiisa iyo ku celcelintiisa iyo fahamkiisa. oo alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka qaabka loo akhrinayana uu sheegay oo ah qaab tartiil ah. tartiilku waratil ilqur'aana tartiilan, si tartiiba oo calaa mahal ah oo kelimad walba la garan karo meeshay ka soo baxday iyo meeshay ku dhacayso iyo siday u fariisanayso la fahmi karo ayaa la yidhaahdaa tartiil. qaabkaas weeye marka qiyaamu leylka maqsuudkiisa loo jeedaa. waa salaad la tukanayo habeenkii wixii ka bilowda cishaha, qofku markuu seexdo kadib uu soo kaco qur'aankana uu akhrinayo uuna taagan yahay,
allana subxaanahu wa tacaala dartiis uu u taagan yahay, wax kale aanay ahayn. yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrinka saasa wuxuu u ballanqaaday waxaanu dadka kale u ballanqaaday alla subxaana wa tacaala. waxaas waxa weeye quratu cayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qariyey ee janno uu kuuga abaalgudo. maxaa dhacay? waxay soo istaageen habeenkii markii dadku ay hurdeen oo ay hurdada ku macaansanayeen u cararayeen hurdada, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u istaageen, hurdadoodii ka tageen, gogoshoodii ka tageen. ninku wuxuu ka tegayaa xaaskiisii uu jeclaa, uu gogosheeda jiifay ayuu ka soo toosayaa. gabadhu ninkeedii ay jeclayd oo gogosha ay la jiiftay, dugaalkii ay ku jirtay iyo bustihii ay huwanayd ayay ka soo dhex baxaysaa. markaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawasaysato alle subxaana wa tacala u istaagay. surtoobi karto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka saasu celiyo. arrinka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aadka ugu abaalgudaya arrinkaa waxaa weeye allana subxana wa tacala dadka mu'miniinta uu u farayo si gaara ugu yeerayo in loo tartamo isagoon ku waajib yeelin, faralna kaga dhigin alle subxaanahu wa tacaala. waxa weeye waa arrin imtixaano adag wey. alsalaatu billeyli wannaasu niyaam ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa aada ugu badan. wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska koowaad 3 xadiis baan ka soo qaadanayna uu ku xusayo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu billeyli wannaasu niyaam inay tahay shay aada u fadli badan oo qof walba aanu gaari karin. qof walboo mu'mina iyo gabar walboo mu'minadan, nin walbo arday ah iyo qof walbo arday ah oo daalibulcilmi ah inuu ku dadaalo noloshiisa bilowgeeda, inuu ku dadaalo inuu naftiisa ku layliyo oo ku tababaro inay barato habeenka inay ka adkaato. haddaanay habeenka ka adkaan, shaydaankana kama adkaan karto, nafteedana kama adkaan karto. nafka daalibulcilmiga ama daacigaah haddaanu bilowga noloshiisa ku tababarin salaatuleylka iyo qiyaamuleylka, waxa aayaduhuna tusayaan, axaadiistuna na barayaan inaanu ka adkaan karin nolosha naftiisa iyo shaydaanka, inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa shahawaadka adduunkana inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa cadowgiisa inaanu ka adkaan karin. waxayna tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cawn adag iyo gargaar adag inaanu ka heli karin haddaanu xiriir la lahayn alle subxaanahu wa tacaala gaar ah oo weliba habeenkii ah haddaanu la lahayn. aayaadka qur-aankaynu hadda akhrinay suuratu lmuzammil iyo aayaadka ilaahay janno subxaanahu wa tacaala ugu abaalgoday suuratu daariyaat iyo aayadda alle subxana wa tacaala nebiga suuratu israa ugu ballanqaaday, saasayna tusinayaan. 3 xadiisoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo qiyaamuleylka. waxa weeye maalin maalmaha ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu warinayo abi malik alashcari, nin la yidhaho saxaabi ah, wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati lagurafan, jannada guryo ayaa yaal buy guraf, guryo weeye, guryo aada u qurux badan. yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha. guryahaas bannaanka markaad joogto gudaha waad arkaysaa muraayad iyo luul. waxa weeye guryahaasu aada u qurux badan oo aad gudaha ka arkayso wixii ku jira. bannaanka markaad joogtana wa yuraa daahiruhaa min baatiniha, gudaha dibadda markaad joogtana aad arkayso bannaanka wixii yaalla haddaad gudaha joogto. markaasi la yaabay asxaabtu ridwaanullaahi calayh, ilan guryo dhagaxa iyo guryo dhooba ah iyo guryo maaragtay balli iyo qoryo laga sameeyey arkayaan adduunyada. qaaluu liman ya rasuula allah, liman hadihi alguraf, guryahaas yaa iska leh rasuulkii allow. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 arrimood buu ku sheegay, dhegaysta. liman acama aطacaam, liman acama aلطacaam wa ataaba alkalaam wa sallaa billeyli wannaasu niyaam. 3 baa iska leh buu yidhi. 3 sifo dadka ku sifooba, rag iyo dumar waxay yihiin, ayaa guryahaas iska leh. waa dadka raashinka quudiya, dadkay wax siiyaan, way quudiyaan. marti iyo socoto iyo qof miskiin iyo qof baahan iyo qof martigeli, raashinka aad bay u quudiyaan, afurinta iyo ramadaanada iyo keyrkeedba.
hadalkoodana waa wanaajiyaan ataab alkalaam hadal xun oo jurux leh kama soo baxo ma caytamaan ma afxuma ma waa hadal macaan oo wanaagsan bay ku hadlaan oo xisaan oo tayiba hadalka dad kuma duraan qofna hadal kuma duro hadal xun ma sheego afkiisu ka adag yahay carabkiisu ka adag yahay biman ataaba alkalaam wa hadlaya kan hadal qurux badan hufan buu ku hadlay wa salla bil-layli wan-naasu niyaam habeenkiina tukaday iyadoo dadku hurdaan xilliga dadku hurdaan taas ayaa xoojinaysa inaan leenahay salaatu leylka ama qiyaamka ama tahajudku waa soo kicitaan hurdo kadib haddii kaleeto imtixaan kuma jiro adaygna kuma jiro qofku waxaa la rabaa inuu seexdo laakiin hurdadu ka soo kaco isagoo ilaahay subxaana wa tacaala waxa agtiisa yaalla xeerinaya oo rabo xadiiska labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya cabdullaahi ibnu salaam saxaabigaas ah ee culimmadii yuhuudda ka mid ahaa soona islaamay wuxuu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam markuu madiine yimi dadka ayaa injafala annaasu ilayhi dadkii baa u soo kacay way ku soo dideen markay ku soo dideen ayaan aniguna soo kacay waan fiiriyey dadkii buu la hadlaayey wejigiisaan fiiriyey facaraftu ana wajhahu laysa biwajhi kaadib wejigiisa waxaan gartay buu ila waa nin caalimo kutubtii hore wax ka yaqaano wejigiisu inaanu been low ahayn ayaan fahmay buu yidhi markaasuu hadalkii ugu horreeyey dadka ku yidhi wuxuu ahaa ayuha annaas afshu salaam waطcimu الطacaam wasiluu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu الniyaam tadkhulu اljannata bisalaam ayuha annaas dadyaho dhegaysta oo maqal afar arrimood baa laydin sheegay afshu salaam salaanta fidiya salaanta waxay keenaysaa maxabo adiga dadka walaalaha muslimiinta ah isjeclaan bay keenaysaa kalgacal bay keenaysaa xumaantii iyo dhibkii iyo cadaawaddii bay meesha ka saaraysaa dadku hadday isa salaamaan keliya iyagoon waxba ka wada hadlin waxay ku muransan yihiin xataa iyagoon ka wada hadlin hadday isa salaamaan keliya waxa weeye dadkaas nabad baa ilaahay dhex dhigaya iyo kalgacal afshu salaam wa aطcimu الطacaam raashinkana quudiya waa xadiiska labaad uu ka xusan tahay aطcimu الطacaam wasilu اlarxaam qaraabada xiriiriya wasalluu bاlleyli wاnnaasu الniyaam habeenkii tukada marka dadku hurdaan tadkhulu اljannata bisalaam xadiiska saddexaad nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis dheer weeye 3 darajaat 3 arrimood waa darajaad kor ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada uu jannada kor ugu qaado darajaadkooda maxay tahay ifshaau salaam wa iطcaamu الطacaam wالsalaatu bاlleyli wاnnaasu niyaam waxa weeye salaada habeenkii ay dadku tukadaan ilaahay subxana wa tacala darajaadkooda kor ugu qaadaa raashinka ay quudiyaan salaanta oo ay fidiyaan ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuu qur-aanka ugu xusay dadka quratu cayn gaar ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u siinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waxaa ka mid ahayd maalinta jimcada ah salaada fajarka wuxuu ku tukan jiray 2 suuradood oo ka sugan nebigu calayhi salatu wasalaam inuu laazimi jiray sida anas radia allahu canhu uu leeyahay kama tegi jirin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratu saajida alif lam mim tanziil iyo suuratu hal ataa cala alinsaan suuratu alif lam mim sajda iyo suuratu hal ataa cala alinsaan xiinu min addahr alinsaan labada suuradood culimmadu waxay yidhahdeen muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan suuradood ugu tukan jiray salaada fajr yowm aljumca maalinta jumca horta awalan waxaan ognahay salaada ugu fadli badan cala aliطlaaq waa salaada fajarka oo jamaaca lagu tukado maalinta jimcaha afdalu salawaati wey salaada ugu fadli badan weeye salaadaha maxaa yeele salaada fajr salaadaha way ka tilmaamanta wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuudan waxay yidhaha culimmadu salaada fajr yacni waa mashhuud malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka qayb gelaysa oo ka markhaati kacaysa salaada fajr markay saa uga tilmaaman tahay salaadaha ayaa maalinta jimcana markay dhacdo maalin jimce ayay maalinta jimcana maalmaha ugu fadli badan tahay yowm aljumca afdal ayaam waa ciiddii muslimiinta waa maalinta ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu u qariyey kana ilduufiyey yahuudi iyo nasaara laga ilduufiyey maxaa yeele way naga dambeeyaan
annaga jimcada markaan ciideenna ay tahay oo fasaxeenni ay tahay oo maalintaynu ciidayno ay tahay isu imaanayno yuhuud waa naga sii dambaysaa waa sabti axadna waa nasaara waa ka sii dambaysaa marka annagu waa ka dambaynay zaman ahaan waan ka dambaynaa saas darteed buu nebigu alay sl slam wuxuu yidhi naxnu alaakhiruuna alawaluun naxnu alaakhiruun zaman ahaan annagaa dambayna laakiin xaggii fadliga iyo jannada annaga uga horayna maalintii jimcana saasaan uga hormarnay oo aan fasaxa uga hormarnay nebigu alay slat slam labadaas suuradood marka waxay yidhahan culimmadu wuxuu ugu tukan jiray horta maalinta qiyaamadu inay kacayso maalinta jimcaha ayaa axaadiista ku sugan wuxuu rabay nebigu alay slam labada suuradoodba qiyaamaha waa lagu sheegayo inay dadku xusuustaan aakhiro inay xusuustaan labada aayadoodba labada suuradoodba aakhiro way ka hadlayaanoo aakhiro iyo waxaa jira janno iyo naar waxaa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa oo mid walba jannadana waa lagu faahfaahiyey waxbaa lagaga sheegay naartana waxbaa lagaga sheegay labada suuradood mid walba ilaahay dadka mu'miniinta iyo gaaladaba uu ku sifeeyey camalkooda oo qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adeecsan habeenkii tukanaysa ilaahay baryaysa u khushuucsan u khuduucsan way qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala beenisay oo ku gaalowday way faasiqiinta iyo faajiriinta iyo kafaradu marka dadka mu'miniintana maadaama qiyaamadiina soo dhowdahay jannadii iyo naartiina albaabadoodii lasoo furay waxaa la leeyahay dadka mu'miniinta ku biira oo xusuusta labada suuradoodba qiyaamuleylka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xusay oo waxyaalaha jannada lagu kasbado labada suuradoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala quratulcaynka uu huwinayo ama u qariyey dadka mu'miniinta ee asxaabuleylka ah habeenkii soo kaca labada suuradoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xusay aad bayna ugu xusantahay haddaynu wax yar ka qaadanno masalan aynu dhegaysanno aynu fiirino aada u ta'amulno maxaa nebigu alay slam u laazimi jiray uga hadli jiray sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xusayo acuudu billahi min ashayطaani الrajim bismi اllahi الرaxmani الraxim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين labada suuradoodba waxaa ku xusan in ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu umay insaankana waxaa la abuuray maalinta jimcada sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu calayh salat salaam nooga sheegay oo maalin jimca ayaa nebi aadam calayhi salaam la abuuray maalintaasaana jannada laga soo saaray maalintaasaana qiyaamadu kacaysaa waa maalinta jimcada fadligeeday ka mid ثم الذي خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. waxaan arkaynaa alla subxaanaه wa tacaala inuu dadkaas dhinacyadoodu habeenkii ay ka soo tooseen uu leeyahay alla subxaanaه wa tacaala تتجافى جنوبهم عن المضاجع xaalkoodii buu fasiray alla subxaanaه wa tacaala noo sifeeyey sababtana waa noo sheegay oo yadcuuna rabbahum khawfa waطamacan ilaahay subxaanaه wa tacaala ayay sabab uga dhigaan inay ka baqayaan allana ka rajaynayaan janno wixii ay haysteenna waxbay ka nafaqaynayaan saas darteed baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ugu abaalguday فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين marka culimada qaarkood waxay leeyihiin dadka ahluleylka ah ilaahay subxaanaه wa tacaala quratu cayn ay ku farxaan ayuu maalinta qiyaamo alla subxaanaه wa tacaala u qariyey aan cidina arag ayuu alla subxaanaه wa tacaala siinayaa oo jannada ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu qariyey maadaama iyaguna habeenkii salaadooda ay qarinayeen oo ay dadkoo hurdo tukanayeen oo ilaahay baryayeen u soo jeedeen oo hurdadoodii macaanayd iyo gogashoodii iyo raaxadoodii uga tageen ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala taas ugu abaalguday suuradda labaad lafta nafsa shay ilaahay subxana wa tacaala saas oo kale ayuu ku xusayaa waana ku aragnay alla subxaanaه wa tacala wuxuu leeyahay acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim hal ataa calى الإنسani xiin min الdahri lam yakun shayئa madkuura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى الله سبحانه وتعالى وكيراهضه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إلهي سبحانه وتعالى يراهدو si aad arrimahaad u hesho oo ilaahay subxaana wa tacaala jannadaas iyo xariirtaasi ku huwiyo udkur isma rabbika bukratan wa asiilan galab iyo subaxba ilaahay xus habeenkiina waqti dheer ilaahay u sujuud oo u soo jeed oo u kac marka dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay qur'aanka u soo jeedaan inay sujuud dheer leeyihiin inay qiyaam dheer leeyihiin oo taagan yihiin inay rukuuc u dhaxeeyaan intaas inay habeenkooda ku bixiyaan sida ay yiraahdeen culimadu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay yani walladina yabituuna lirabbihim sujadan wa qiyaaman yani kuwa ku barya habeenkoodii oo ku bixiyey inay u dhaxeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo u rukuucaya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo u sujuudsan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo u taagan sida uu alla subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay marka imaam tabari wuxuu leeyahay waxay ka dhaxeeyaan rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo qiraa'at qur'aan bay habeenkoodii uu ku baxay iyo duco ay ducaysanayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayaan inahaas waxay aniga ila tahay qur'aanka inay qofku hadduu aada ugu noqdo uu arkayo calaamo weyn oo qur'aanka ku jirta oo ah habeenka iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba waxaa ka dhaxeeya cilaaqo gaar ah cilaaqadaas oo ah inay habeenkii ilaahay baryaan arrinkaas wuxuu u baahan yahay jihaad wuxuu u baahan yahay dadaal wuxuu u baahan yahay nafbarid wuxuu u baahan yahay nafta oo lala diriro waxay ila tahay arrinkaas haddaad qur'aanka dib ugu noqoto wanaagiisa iyo nicmadiisa wax badan ayaad ka arkaysaa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood haddaynu u noqonno iyo siduu uga digay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku inuu qiyaamo leylka ka tago ama u nacbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama da'bigiisa noloshiisu say ahayd haddaynu wax yar ka fiirino nebigu calayhi salatu wasalaam sida abu hurayra uu ka warinayo wuxuu leeyahay afdalu siyaami bacda ramadaan shahru llahi almuxaram wa afdalu asalaati bacda alfariida salaatu lleyl imaam muslim iyo abu daa'uud iyo nisaa'iba way warinayaan wuxuu leeyahy nebigu calayhi salatu wasalaam ramadaan kadib soonka waxaa ugu fiican bisha muxaram salaadana fariidada kadib midda waajibkaa kadib salaatuleylka ayaa ugu fadli badan cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu sida uu ka warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii aan soo sheegnay oo abu malik uu sheegay isaguna waa ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu alle subxaana wa tacaala guryo jannada ah u ballan qaaday dadka habeenkii salaada tukada jaabir radi allahu canhu xadiis saddexaad wuxuu nebiga calayhi salatu wasalaam ka warinayaa sida saxiix muslim ku qoran wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu ina fi lleyli habeenka waxaa ku dhex jirta la saacatun saacad baa ku dhex jirta laa yuwaafiquhaa ma waafaqayo rajulun muslim qof muslimi ma waafaqo yas'alu allaha weydiisanaya alle subxaana wa tacaala khayran khayr weydiisanaya min amri اdunya wاlaakhira arrin aakhiro ama arrin adduun ilaahay weydiisanaya ilaa acطaahu iyaahu nicmadaas maxaa ka weyn qofka mu'minkaa wuxuu haystaa habeen walba gabadha mu'minadda waxay haysataa habeen walba ilaahay subxaana wa tacaala saacad ku jirta waqti saacad waa waqti maaha saacadda 60 daqiiqaa aynu naqaano saacad waa fatra min azaman way noqon kartaa waqti ka dheer waqtiga yani saacadda aynu u naqaan oo 60 daqiiqa ama way noqon kartaa ka gaaban yani waa waqti habeenkii ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo muslima oo wax weydiisanaya khayr adduun iyo aakhiro ilaahay subxana wa tacala ilaa acطaahu iyah wadalika kula laylatin habeen walbow saas darteed walaalaya
ayaa nebiyadii iyo dadkii saalixiinta ahaa waxay ahayd caadadoodu waqtigaas inay ilaahay wax weydiistaan oo xataa maalintii waxyaalaha dhaca habeenkii ay u dibdhigtaanoo habeenkii ay weydiistaan marka uu leeyahay nabiyullaahi yacquub awlaaddiisa ay dhaheen yaa abana astakfir lana dunuubana wuxuu ku yidhi fasawfa astakfiru lakum rabbii inahu algafuuru raxiim culimo badani waxay ku fasireen wuxuu yidhi waa ilaahay baan dembi dhaaf idin weydiinayaa yacni habeenkii marka aan usoo tooso oo salaatuleylka ay tahay oo waqtiga ilaahay subxana wa tacala samaa dunya usoo dego ilaahay subxaana wa tacaala oo uu wajibayo saacadahaas uu dadka mu'miniinta ah uu alla subxaanahu wa tacaala eegayo kuwa usoo jeeda ee uu ajiibayo waqtigaasaan ilaahay idin baryayaa bay culammada qaarkood ku fasireen sidaasoo kale waqtiga uu zakariya ilmala'aanta u ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala u baryayey waxay culimmadu ku tilmaameen inuu ahaa waqti salaatuleylkiisa iyo mixraabkiisa isagoo ku tukanaya masaajidkiisii ama meeshii uu ilaahay ugu cibaadaysanayey inuu ilaahay subxaana wa tacaala nidaa aan cidina waxba ka ogeyn inuu ilaahay subxaana wa tacaala u yartay waa kan ilaahay subxana wa tacala noogaga sheekeeyey siduu ilaahay u baryay habeenkii kaaf haya cayn sad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ilaahay subxana wa tacala ayuu hortaageen dadka mu'miniinta marka waxay leeyihiin habeenkii inay ilaahay la showraan habeenkii inay ilaahay hor istaagaan habeenkii ilaahay xaajaadkooda u bandhigtaan ilaahay subxaana wa tacaala cabsida ay ka qabaan naartana ay weydiistaan inuu ka magan geliyo jannada siday u rajaynayaan inay ilaahay subxana weydiistaan wax kasta oo khayr addunya khayr aakhiraba waqtigaasay ilaahay subxana wa tacala hor dhigaan ilaahayna subxana wa tacala u ajiibaa qofka mu'minka oo xiriirka tooska haysta sidee buu u noqon karaa qof go-an sidee buu u noqon karaa qof xiriirka ilahay subxana ilaa inuu isagu yahay qof maxruumah oo ilaahay subxana wa tacala xiriirkiisu gooyey oo aan la lahayn xiriir inuu noqdo maahayn sidee buu u noqon karaa qof go-an qofka ilaahay subxana wa tacala xiriirkaas la leh ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistiisa waqtiga uu fidinayo raxmaadkiisa ilaahay subxana wa tacala uu siinayo ayaa qof walba oo mu'mina u furan ee hadda ka gaar oo haddii aad hore u samayn jirtana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dheh haddaanay samayn jirin caadadaada aanay ahaynna goy macaasida iyo waxa kusoo jeedo iyo habeenkii waxa aad kusoo waqtigaa ku dhuminayso ilaahay subxana wa tacala hor istaag oo ilaahay subxana wa tacaala bari oo ilaahay dantaada u sheego ilmo la'aan haddaad tahay u sheego cilmi la'aan haddaad tahay u sheego tabaryalaan haddaad tahay u sheego gargaar haddaad u baahan tahay warso cid haddaad ka baqayso weydiiso maxaa kaa hortaagan habeenkii inaad ilaahay la faqdo oo ilaahay xaajadaada u dhiibato saasay yeeli jireen dadka mu'miniinta ah ilaahay subxaana wa tacaala suu nooga sheegay nebiga calayhi salatu wasalaam see ahaa xaalkiisu habeenkii sidee buu ahaa caaisha radia allahu canha ayaan ka warsanaynaa iyadaa noo sheegaysa umulmu'miniin radia allahu tabaaraka wa tacala canha waxay leedahay umulmu'miniin caaisha radia allahu canha nin baa u yimi cabdullaahi ibn abi qays la yidhaahdo radia allahu canhu qaalat waxay ku tiri qaalat caaisha radia allahu canha laa tadac qiyaama alleyl niyahow ha dhaafin qiyaama leylka ha dhaafin faina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kana laa yadachu nebigu calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin bay tiri wa kana idaa marida xataa hadduu xanuunsado ow kasala ama uu xooga caajiso sallaa qaacidan isagoo fadhiyaha buu tukan jiray habeenkii xataa salaada naafiladaana way furan tahay habeenkii in la tukan karo adoo fadhiya imaam abi daawuud baa ku warinaya sunantiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan habeenkii tukan wuu ka digey oo wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni camr bn caas radi allahu canhuma qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ya cabdallah cabdullaahiyow laa takun mila fulan hebel oo kale ha noqon kaana yaquumu lleyl fataraka qiyaama alleyl habeenkii buu tukan jirayo uu iskaga tegay marka uu iska daayey imaam bukhaari iyo muslim baa warinaya yacni ninkaan nebigu calayhi salatu salaam dhaliil buu usoo jeedinaya adag oo ah inuu habeenkii tukan jiray oo ka tegey ninkanna wuxuu leeyahay hala mid noqon habeenkii nebigu calayhi salaatu wasalaam see u tukan jiray cabdullahi ibni cabaas aan weydiino radia allahu canhu wuxuu leeyahay bitu cinda khaalati maymuna habaryartay maymuna ayaan habeen la baryey
والنبي صلى الله عليه وسلم عندها habeenkii kaltankeeda bay ahaydo xaasaskii nabiga عليه الصلاة والسلام maadaamay ka mid ahayd فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام wuxuu la waramay مع أهله xaaskiisii buu cabaar la sheekaystay ساعة وقتي ثم رقد markaasuu seexday فلما كان ثلث الليل الآخر habeenka qaybtiisii dambe 3 meelood oo meeshii u dhameysay markay ahayd أو بعضهم ama qaybtiis kamida قعد فنظر إلى السماء وفريستي النبي عليه الصلاة والسلام سوبودي وفريستي فنظر إلى السماء samadu eegay nabigu calayhi salaatu wasallam guriyo yaryar bay ahayn iridda looga soo baxo markiiba samadu eegay markaasuu wuxuu akhriyay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا سوء أخري النبي عليه الصلاة والسلام حتى ختم السورة سورة آل عمران خواتم كذا إلى ختمي ثم قام إلى القربة مركاسو قربة كيبو تجي بيو كشبتي فألق شناقة أفكذو فري ثم صب في الجفنة والكي ويسنجري أيو كشبتي كلحي بيو كشبتي كلحي مركاسو قاطي فتوضأ وضوءا حسنا ويسأل ونكسن قروح بضا أيو ويسست النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر وقد أبلغ فقام فصلى مركاسو استاغيو وتكدي فقمت aniguna waan istaagay watawada'tu waan weysaystay waa wiil yar oo kuraya 10 jira markaasaan aniguna weysaystay faqumtu an yasaarihi bidixdiisaan soo istaagay bidixdiisa ma uu garanayn bidixdiisa soo istaagay fa akhadha bi udhni dhagtaydu qabtay oo isoo qabday fa adarani an yaminihi midigtiisu ikeenay dhinaciisa midigta ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam si tartiiba u soo istaajiyay wiilka salaada la baray salaatu qiyaam leel dadka saa ku soo koray maxay noqon doonaan barakallahu fiikum عن يمينه فتتامت صلاته وحي كل ما يسترنتي وصلاة كل ما يسترن أي كل ما تي 13 ركعة صدح يتمرك عضاد أيتك النبي عليه الصلاة والسلام ثم طجع مركاسو لنعا دقي أو دولك حوغا يرسحدي فنام حتى نفخ وصحدي إلى نفتس إصابة أما خرديس إصابة وكان إذا نام نفخ هدي ومركز سيحدنا ولا مغرب جري نفس كيسا مخورديسا فآذنه بلال أيام مارته مركز صلاة فجر وقوي من النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ولم يتوضأ يعني وقع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بتكدي يعني النف أيام مارته كسب بعد صلاة آد وقومه مارته هرد ومصلحا حقا ير ونصشاء أي مارته النبي عليه الصلاة والسلام إن ير أو صلاة الليل كي أفضل سيء وقد يرجعه صلاة فجر marmarna saas uu yeeli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhinaca u seexdo salaatuleylka markii uu ka dhamaado si ay xogaa nasasho yar ugu noqoto oo maarta salaada fajrka uu si nashaad leh ugu tukado walam yatawadda wa kana fi du'aa'ihi ducooydiisi markuu baxay oo guriga ka baxay waxa kamid ah allahumma ij'al fi qalbi nuuran ilahu qalbigayga nuur ka yeel wa fi basari nuuran indahayga ilahu nuur ka yeel wa fi sam'i nuuran dhagahayga iyo maqalkayga ilahu nuur ka yeel wa an yamini nuuran midigtayda ilahu nuur dhig wa an yasari nuuran bidixdayda ilahu nuur dhig wa fawqi nuuran korkayga ilahu nuur dhig wa tahti nuuran hoostayda ilahu nuur dhig wa amami nuuran hortayda ilahu nuur dhig wa khalfi nuuran gadaashayda ilahu nuur dhig waj'al li nuuran ilahu nuur iyal الله سبحانه وتعالى نور ينسيه وزاد بعضهم وفي اللسان نورا عرب كيغا إله النور صار وذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري انت أصبح والله حصي يضنا رواية كلنا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وفي أخرى لمسلم إمام مسلم رواية كالولية اللهم أعطني نورا إله النور إسيه intaas nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada markii uu soo baxay ayuu sida ugu ducaysanay walaalayaal waxaad arkaysaan marka jidka uu jideeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa iyo salafkiisa iyo ummadiisa wanaagsan sida ay tahay inay habeenkii ilaahay baryaan oo waqtigaas oo kale oo haadi ah oo degan oo dadku aan arkayn Allah subhanahu wa ta'ala aad ugu xirnaadaan wuxuu leeyahay habeen kale to isoo ka waramaya
inahu raqada cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu seexday fastayqada nebigu wuu soo kacay fatasawaka watawada'a waa loo diyaarin jiray nebiga caley cadaygiisa intaanu seexan habeenkii cisha ayaa meel loo sii dhigi jiray waysadiisana meel baa loo sii dhigi jiray dadkii saalixiinta ahaayo kadambeeyey asxaabtii o dhanna saasay ahaayeenoo habeenkii waa loo diyaarin jiray inta aanay seexan ayay cadaygooda iyo waysadooda iyo xataa qaarkood waxay diyaarsan jireen dhar aad u qurux badan oo ay gashtaan markay salaatuleilka tukanayaan waxaa la sheegay tamiim addaari inuu thawb ku iibsaday 1,000 dirham inuu thawb ku iibsaday si uu habeenkii salaatuleilka keliya ugu tukado oo maaragtay ilaahay subxana wa tacala ugu hor istaago siday ugu maaragtay dadaali jireen marka uu soo kacay ayuu aayadaha akhriyay suurat ali cimraan xataa khatama suura uma qaama fasallaa rakcatayn ataala fiihima arukuuc alqiyaama walrukuuc 2 ragcadood ayuu tukaday aad u dheer waan garanaynaa habeenkii noocyay u ahayd salaada kolalka qaarkood 2 ragcadood uu ku dheeraado oo 5 juz uu ku tukado 4 suuradood ama 3 suuradood uu isdaba dhigo ayuu kolalka qaarkood ku tukan jiray kolalka qaarkoodna uu gogoyn jiray 10 ragco 11 13 ayuu tukan jiray kolalka qaarkood 5 ragco oo isku xiriirsan marka arrinkaasna waxaa qaacido u ah salaatu leyli mathna mathna buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu leylku waa labaad u tukanaysaa fa idaa khashiya axadukum alfajra haddaad ka baqdo waagii inuu kugu baryana 1 ragco oo ku witr kugu noqota ku tuko ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka nebigu marka saasuu ahaa sida caaisha radiallahu canha ay ka warramayso xadiis kalaan kusoo khatimaynaa habeen leylkiisa suu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin ayaa weydiiyey cubayd ibni cumayr la yidhaahdo nebiga calayhi salatu wasalaam habeenkiisu siduu ahaa licaaisha qaala licaaisha radia allahu canha akhbiriina biacjabi ma ra'ayti annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga wuxuu ugu yaab badnaa oo aad ka aragtay noo sheeg markaasay tidhi cabaar bay aamustay cabaar ayay aamustay caaisha radi allahu canha waxay la aamustay nebiga alay slam la soo xusuusiyey ayay la aamustay fasakatat uma qaalat markaase waxay tidhi lama kaanat markay ahayd habeen min allayaali habeenada ka mida qaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishay markuu guriga yimi darinii atacabadu leylata lirabbi idhaaf uu yidhi caawa aan ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaysto yani xaqaagii aad lahayd idhaaf caawa aan ilaahay u cibaadaysto qaalat waxay tidhi wallahi inii uxibu qurbaka rasuulkii allow ku dhawaanshahaaga waan jeclahay oo uxibu maa yasuruka wixii ku farax gelinayana waan jeclahay hadday salaadda ku farax gelinayso waan jeclahay oo waxba kama qabo qaalat waxay tidhi faqaama uu istaagay fatatahara markaasuu weysaystay uma qaama yusallii markaasuu istaagay inuu tukado nebigu calayhi salaatu wasalaam qaalat falam yazal kama uu zuulin yabkii inuu ooyo isagoo tukanaya xataa balla xijrahu ilaa dhabtiisa ay oohintiisu buuxisay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaalat wakana jaalisan wuu fadhiyey oo fajalasa yabkii falam yazal yabkii kama uu zuulin inuu ooynayo calayhi salaatu wasalaam xataa balla lixyatahu ilaa garkiisa ay oohintiisu buuxiso qaalat uma bakaa haddana wuu ooyey xataa balla alarda ilaa dhulkii u buuxiyo oohintiisu ay dhulku calayhi salaatu wasalaam xataa balla alarda fajaءa bilaalu bilaal baa yimi yu'dinuhu lisalaati salaaddii isagoo bilaal uga warramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegaya salaaddii fajr loo soo gaaray falamaa ra'aahu yabkii markuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu oynaya qaala yaa rasuula allah rasuulkii allow tabkii waqad gafara allahu laka ma taqadama min danbika wama ta'ahara rasuulkii allow ma oynaysaa adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaagii hore iyo dembigaagiiba dambeba uu dhaafay alle subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuuran miyaanan ahaanayn addoon ilaahay umahadiya haddii xataa la ii dembi dhaafay laqad naزlat calaya leyla caaw waxaa igu soo degay aayad baa igu soo degay weylun liman qara'ahaa wuxuu hoog leeyahay qofkii waxaa hoog leh akhriya walam yatafakar biha oo aan ku fekerin markaasuu akhriyay ina fi khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laآaayaatin liuli اlalbaab aayaddii kulligeed ayuu akhriyey ibn xibaan fii صaxiix ayuu ku wariyey waana xadiis xasana nebigu calayh الsalatu wasalaam marka walaalaya habeenkiisu saasuu ahaa asxaabtiisu siday ahayd iyaguna sidaas oo kale ayay ahaayeen mucaawiya ibn qura wuxuu leeyay dakhaltu cala alxasan xasan ayaan usoo galay waa xasan albasri taabiciya wahuwa mutaki calaa sariirihi faqultu waxaan idhi yaa aba saciid ayu alacmaali axabu ila allahi acmaasha maxaa ilahay ugu jecel yahay qaala asalaatu fi jawfi اlleyl wاnnaasu niyaam
وعن الأوزاعي isaguna taabiciye wuxuu leeyahay balaganii annahu man ataala qiyaama alleyl waxaa isoo gaartay yani ama kutubtii ama cilmi hore iga soo gaartay man ataala qiyaama alleyl khafafa allahu canhu yowma alqiyaama qofkii habeenka qofkii soo jeeda oo salaad ku soo jeeda khafafa allahu canhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu fududaya cabdullahi ibni abilhudayl wuxuu leeyahay qiyaamu alcabdi fii jawfi alleyli ila salaati habeenkii soo jeedka uu salaada u istaago qofku nuurun lahu yascaa bayna yadayhi yowma alqiyaama nuur buu u yahay maalinta qiyaama hogaaminaya dulumaadka marka la joogo ayuu hogaaminaya yaziid araqaashi wuxuu leeyahay bituuli tahajudi taqaru cuyuuna alcaabidiin habeenkii soo jeedkiisa badan ayaa dadka caabidiinta ahi ay aad u jecel yihiin oo wax kasta uga jecel yihiin waayo bituuli dama tafraxu quluubahum haraadka maalintiina qulubtooda ayaa ku faraxda wuxuu leeyahay wakiic xadaثna sufyaan can mansuur can ibrahim kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun aayaddaa markuu fasirayay wuxuu yidhi kanuu qaliila min alleyli ma yanaamuun habeenkii wax yar bay seexan jireen wuxuu leeyahay ibnu cabaas radi allahu canhu asxaabtii nabiga calayh الsalatu wasalaam isagoo ka warramaya kanuu qala laylatin habeen wuu yaraa bihim ilaa saluu fiiha way tukan jireen asxaabtu kana cumar bn khadaab radi allahu canhu yamuru biاlaaya aayad buu soo mari jiray habeenkii isagoo salaada tukanaya sida laga warramay suuratu tuur isagoo habeen akhrinaya wa tuuri wa kitaabin mastuur ama wuxuu maqlay qof akhrinaya fii raqin manshuur waalbayt almacmuur waasaqfi almarfuuc ina cadaaba rabbika lawaaqic aayaddaa markuu maqlay dhulka ku dhacay markaasaa laqaado gurigiisuu tegey ayaamaa la soo booqanayay oo inuu xanuunsan yahay loo malaynayay xanuunkaayana wuxuu ah aayadda ula xanuunsaday keliya ayay ahayd wax la xanuunsaday radia allahu canhu marka ayaamo dhan ayaa lasoo booqanaya oo aan la ogeyn wuxuu la xanuunsaday inay tahay cadaabta ilaahay subxana wa tacaala suu iga baqayo nin baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu walaalayaal waxyaalaha ina hortaagan weeye inu ogaano maxay naga hortaagan qiyaamuleylka maxay naga hortaagan ilaahay subxana wa tacaala maxaan ula la'nahay inaan khalwo la yeelano habeenkii oo aan habeenkii la warrano alle subxaana wa tacaala cabdullaahi ibni mascuud ayaa la weydiiyey su-aashaas wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi ma nastatiicu qiyaama alleyl habeenkii waan soo kici kari la'nahay qiyaama leylkiina waan awoodi kari la'nahay markaasuu wuxuu ku yidhi aqcadatkum dunuubukum dunuubtiina ayaa meeshaydin dhigtay buu yidhi nacam dunuubteenna ayaa meeshayna dhigtay wax kale oo qofka hor istaagaya ma jiraan oo ahayn dembigiisa ina arajula la yuxramu qiyaama alleyli bidanbi yusiibu dembi uu galay ayaa qiyaama leylka uu la weynayaa salaad fariid uu ka tegey ama xaaraan u egay ayuu la weynaya qiyaamu leylkii ama uu xaaraan u cunay ayuu la weynaya qiyaamu leylkii ama hadal xun uu ku hadlay ayuu la weynaya qiyaamu leylkii waxaa la weydiiyey xasan ma baalu almutahajiriina min axsani الnaasi wujuhan dadka maxay yihiin dadka ugu qurux badan wejigooda ugu qurux badan yahay qaala wuxuu yidhi liannahum khalow bالraxmaan alle subxaanaه wa tacaala ayay la keli noqdeenoo faalbasahum min nuurihi nuuran markaasuu wejigooda ilaahay subxaana wa tacaala nuur huwiyey saasuu leeyahay cabdullahi ibn mubaarak haddii habeenku uu mugdi noqdo markaasay u istaagayaan alle subxaana wa tacaala markaasuu habeenku ka gadoomaya iyagoo rukuucsan oo sujuudsan marka ay dadka ahlu dunyada ahi ama dadka adduunku markay hurdo qararac leeyihiin oo ay hurdada ku jiraan sidaas ayuu ahaa xaalkoodu waxaan kusoo khatimayaa sidee buu ahaa salafkii qur-aanka say habeenkii ugu kici jireen waxa weeye يعني waad la yaabaysaa nabiga calayh salatu wasalaam inuu suuratu albaqara iyo suuratu ali cimraan iyo suuratu nisa hal ragco uu ku tukaday arrinkaasaa nabiga calayh salatu wasalaam ka dhici jiray abu muusa alashcari radia allahu canhu marka habeenka gurigiisa lasoo maro asxaabta qaarkood way dhegaysan jireen shaam markuu tago ama uu tago yemen saasoo kale ay u dhegaysan jireen habeenka qiyaamuleylkiisa markay isu yimaadeen isaga iyo mucaad ibnu jabalna waxay iswarsadeen habeenkii sidee yahay adiga qiyaamuleylkaagu arrimahaasay ka sheekaysan jiray qur-aanka habeenkii goorma akhridaa caamatu saxaaba wa caamatu salaf qur-aanka waxay akhrin jireen habeenkii bay akhrin jireen salaadayna ku akhrin jireen waana midda u dhaxaysa inaga iyo quruntan inaga iyo iyaga inoo dhaxaysa waa waxa inagu aynu khilaafka iyo dhibka iyo dembiga iyo kala tagga iyo isnacaybka iyo sabir la'aanta iyo waxaasoo dhan cudurradaasoo dhan aynu inaga inoogu badan yihiin iyagana ay ugu yaraayeen sababtu waxay tahay qalbigooda ayaa aakhira ku xirmay jannada dalabkeedu ku xirmay naarta cadaabta iyo ka baqideedu ku xirmay halkaasayba ku xirnaayeen halkaasay habeenka ku xirnaayeen saas darteed maalintiis may dagaali jirin annagu laakiin habeenkeennii baa wuxuu yahay habeen baas habeenkeennii waa habeen baas markuu noqday maalinteennii buu raad ku yeesho maalin baas bay noqotay oo la isdagaalo maxaa dhacay ninkii islaantiisu ma heshiin karaan
wiilkii oo walaalkiis ma heshiin karaan labada saaxiibka ama walaalaha ma heshiin karaan siyaasad lagu ma heshiin karo oo xoolo lagu ma heshiin karo oo masjid xataa lagu wax lagu heshiin karaa ma jiraan sababtu maxay tahay dadka habeenkooda habeen baas noqday habeen baas markuu noqdayna qalbigoodii baa qalalay qalbigoodii markuu qalalayna alla subhanahu wa ta'ala meelay ku baayaan iyo meelay ku baaba'ayaan danka ma laha waxa laga sheegay Abu Ishaq as-Sabi'i waa nin culimadii salafka xadiiska ee kamid ahayd wuxuu yiri waxa la weydiiyay Sheekh Abu Ishaq maxaa ka soo haray baa leeyahay nin weyn oo da'ah baad noqotay hadda yani aad bu cad u noqday oo habeenkii xataa ilaa la istaajiyo ma istaagi kari jirin isay kaligiis markaas wuxuu yiri wallahi tabartii waa dhamaatay dhalinyaranimana waa tagtay hadda habeenkii kuma tukan karo ilaa suuratul baqara iyo al imraan ma ahina wax kale kuma tukan karo habeenkii wax kale oo aan akhrin karo malaha yaraat marka inta la istaajiyo ayaa kor loo qaadi labada garab laga galo garbaha laga gala la istaajin jir markii uu aad qummaati u istaagana ما هو الركوع جرين بالي إلى سورة البقرة وختم سورة البقرة مركو ختم بالركوع جري عبادة ظهور تساسيد دمر كلفتي قوضة ساسيد قبر صالح حتى قبلها سكملة أيها ننك هذا هبينك هراتك كل فترين مركا سيتري ورككع وحا إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكته سبك حشودين وضدك صالح انت كحشودين خورة هذا بدن بالغ حشودين بيترككع ككع وإلهي سبحانه وتعالى أتوكو مركا هراتي انت كل فترين أيضا صلاة دي تكنيسة أي سجن صلاة دي أقعسي سدا سي هبينك إلهي كود بريه waxaan isweydiinayna maxaa ku sahlaya inaad ku kacdo awalan maalintii horta ilaahay caasin oo macsiya iyo macsida iska dhaw thaniyan maalintii isku day inaad qeylulad qaadato ama waqti yar aad ka seexato walaw nus saac ama rubuc saac si habeenkii wax ku tarto thalithan habeenkii goor hore inaad seexato raabican arrinka afraad waxa weeye inaadan habeenkii cunto aad u culus aadan waqtigaad seexanayso aadan cunin si ayaan habeenkii kaaga baahin salaada ayaan kaaga bixin سادسا وحوي إناد نيستو إناد سوق عيسو حتى نياد أسماء إلهي أجر كوسينيا أرنكا شناد وحوي أما اللي حد إناد وقت وحكو سوق عيه آسما يستو أما عد يعني مارتك سوق عيسو أو خيرك تشعل سوق لاتو أما